واني سلام أصحابتي دمانتين waxay iga qoslaysiiyay wiil maalmaha meelaha la wadoodo oo dhahay jiiman ka furay Soomaaliya ama coach ahay oo dadkan yani trainings u sameyn lahaayeen isay kiilaadkooda u dhimi lahaayeen baa u sheegaya ma fahamtay kadibna wuxuu dhahay qarashka jiimka waa $5,000 dad badan oo comment ka bixiyeen akhrinayay waa fuure mid walba wuxuu dhahaa $5,000 markaan jiim ku dhigana ma waalanahay madax maan dab ka rabaa marka ana waxaan isweydiiyey muqdisho dadka joogo ma dad waxaa jooga $5,000 jiim bis ku dhigan karo oo saas taajir u ah Soomaali taajiriin way ku jiraan laakiin taajir $5,000 madaxweynaha xataa ma ku dhiganayo madaxweynaha yaa ka lacag badan waa may bil kasta lacag dhabal soo gasho somo madaxweynaha xataa $5,000 ganacsiyaasha ama dadka lacagta leh oo ku dhiganaya waay maroo qof u soo jawaabay arkay wiilkaas oo wuxuu dhahay dadka lacagta la waay idinka ma ahan yani idinka saboolaatihiin waxba tihiin waay dadka lacagta la waxaan loogu talagalay waay marka eebo hal midaan ku weydiinaa Mareykanka waxa uga timid miya inaad reer Muqdisho masaakiin inaad dhacdo ma uga timid bas inaad wax u qabato wax macquulan aad wax ugu qabato ma diidani inuu jirkaaga dhisan yahay ma diidani inaad jiimka xirfad u leedahay dabcan waa sameysay marka adiga dabcan waxa tahay tusaale u bixisa dadka jiimka ma geysid kaliya boda siinay bodada cunaan leedahay gaaji isku dilaan leedahay salad cunaad leedahay orda leedahay ma fahamtay kaliya adiga waxa siisa tibisa siisa ma fahamtay marka tibis ma ku rabtaa $5,000 inaad ku xaabsato 6 bilood aad rabtaa inaad ku taajirto 6 bil bes aad rabtaa inaad ku taajirto Mareykan intaas oo sano joogto waa taajiri weys marka Mareykan lagu taajiri waayay Muqdisho lagu taajiri ma wadiin dadka qurbaha ka imaadaan maalmaha sheekay bilaabeen Afrika lacagta la inta maqleen inta Afrika tagaan dadka dhagaha xiran oo indhaha xiran dhacayaan waxaas waa dambi walaal hadii aad rabtid inaad dadkaagana caawisid adigana aad faa'iidid wax macquula la imo aan ku leeyahay ma fahamtay aniga ganacsigaaga ma ka soo horjeedi cadawku maahi wiil walaalkay Soomaaliyeed ta fikrad fiican aan geysay dadka waa garab qabanaysa training sameeyo dhowsa dhiirigelin sameeynaysa waa ku daawada laakiin maskaxda daro dad saboolay u badan meesha dad normal ah ka dhig $3 $4 ilaa $5 ma fahamtay